السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناس شرف قيمة أيا أكتر كل هذا ولا وحن كلام العلمية سيد شرفن وناكسن الله ولا فرق رئيسه برنامج جدا كبح حلقة حقيقة ما أنتو حنا وأنا كهالله أرن يقلق شيء أو رنتي ينقف كسر الصومالية وكهل وحياتها هاي وحلو قوشايو أن أقل من هوين صومالية إن الوسمين حقيقة waxaa ila soo xiriiray dhowr iyo 10 gabdho Soomaaliya oo mid kasta oo mid kaleba ay ka dib badan tahay ama ay wax ay sheeganayso uu yahay wax aad iyo aad runtii murug u leh saameyn qofeedna uu yeelan karo xaqiiqatan waxyaabahaas ay dumarka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah ay la wadaageen waxay igu reebtay murug aad u badan ma ahayn dhacdo aan ka filayay in uu ku lug yeelan karo wiil Soomaaliyeed ma ahayn sidoo kale dhacdo aan aaminsanaa in ay ma aragtay ki imaan karto qof Soomaaliyeed oo qof walaashiisa dumar ah ku sameyn kara xaqiiqatan laakiin way dhacday bini'aadamku Soomaaliyeed waxay tiraahdaa wax kasta waa ka filan kartaa bini'aadamka waxay ahayd waxyaabaha igu daran ee aan arkay ilaa iyo 12 gabdhood ee aan magacooda iyo codkooda rabin inaan isticmaalo si aan uga feejignaado in ayagu ay waxyeelada shalay haysatay wax mid ka daran ay ku sii noqoto laakiin fariintan mar walba inay gudubto muhiim si u gudbay marka iyadoo polite way u gudbisa iyadoo aan qofkii ficilka sameeyeen lagu xad gudbeenin oo wax loo sheegay la waaninayo iyadoo qofkii dhibanaha ahaa victimka ahaa ee dhibaatadu ay gaartayna magaciisa iyo xuquuqdiisa iyo maarad sharafkiisa la ilaalinayo gabdhaha ila soo xiriiray waxay intooda badan ka sinaayeen inay dhibanayaal u yihiin rag Soomaaliyeed oo walaalahooda tan ugu daran marka waa kala qaadinayay mid kamida waxay la wadaagtay arin argagax leh waxay dhahday wiil baan wada wadaagi jirnay sheeko waxa naga dhaxaysay xiriir aad u qoto dheer oo jacayl waxaan ku ballanay guur wiilku waxaan ahayn inaan nafta istaafsano oo runtii aan ma aragtay mustaqbal wada yeelan rabnay waxaan joogay bay tiri wadan kamid wadamada Carabta halkaas oo aan ka shaqeyn jiray shaqo aad u adag una dhib badan xaqiiqa wiilkii dartiis oo ku noolaa qurbaha wadamada Yurub dartiis ayaan maaragtay nolosheedii iyo shaqadii iyo dadaalkii aan qoyskayga ugu maqnaayay aniga fiirsanayeen uga soo tagay si aan asaga noloshooda midoobay tiri waxay sheegtay wiilku in uu ahaa nin dhalinyaro ah laakiin Yurub ay cishay oo maaragtay uusan helin xuquuqda qofka markuu Yurub yimaado uu helo sida sharciga noloshiisuna aad u hooseysay oo iyadu ay markay halka joogtay wadamada Carabta ay caawin jirtay dabadeed wiilkii dartii ayay u soo haajirtay isfaham waa ayaa dhacay kadib markii ay la timid wadamada Yurubta meel kamid ah wiilkii wuxuu gabadhi ku wargeliyay oo u sheegay inuusan rabin danna ka lahayn gabadhii moral iyo disappoint ay noqotay way la noqon weysay qofka ficilka noocaas ay kala kulmayso inuu yahay qofkii ay intaas u soo martay okay waa iska normal way dhici kartaa middan ya qof walba waxaan filan ka filaala way dhici kartaa ka soo tag maxaa xigtay in markii hore xiriirkooda uu jiray ay wadaagi jireen fariimo iyo sawirro iyo waxyaabo kala duwan oo aan munaasab ahayn mararka qaar marka loo fiiriyo wixii ayaa gabadhi rikaato looga dhigay marka saameynta meesha ka timid meesha wiilkii ayaa gabadhi ku rikaateenaya ma aragtay taswiir ama sawirro ay ma aragtay isnaafsadeen oo iyadu la gaclootay inay u dirto maadaama ay ahaayeen dad saas isku ah uu is aaminay ya haqaldanaad ficil laakiin is aaminaadi keentay in lagu rikaatay qofka rikaataysi waxay sababtay in gabadhi la dhaho intaan noosha hadii aan ka warhado adigu wiil telefoon halo dhahay iska daayay jidka soo maray dhahay walaalkay dhahday xitaa inaan baraha bulshada ku faashilaa baraha bulshada inaan kugu faashilaa murug ceel yacato daryeel la'aan dhibaato nolosha qurbaha oo sugays taas uga sii dartay bal ka waran qofkii aad dugaashanaysa haduu dab u noqdo darbiga aad dugaashanaysa dugaad waa murug gabar kala jirtay iyaduna oo ila wadaagtay dhacdo kala murug leh waxay ii sheegtay iyaduna in wiil ay saaxiib yihiin ay wax wada baranayeen inay ku balameen guur dabadeed wiilkii gabadhii ay ismeher xadeen isguursadeen markii ay isguursadeen kadibna ay laba qof oo lamaana oo isguursadayba wixii dhaxmaray lahaa uu dhaxmaray wiilkii sidaa dabadeed uu gabadhii muuqaalo ka duubtay
muuqaal inuu ka duubtay wuu ka duubtay muuqaaladii uu xareystay gabadhii soo wacay wuxuu yiri haddii wax kasta oo aan sameyn ku dhaho aadan sameynin wallaahi وبالله وطلعه ويري والله يابا الدون كان جلجلا وله مقالة بنانك ميرون فيسبوك انستغرام سناب شات واتساب تويتر all over look كستا وقف صومالي وكجران جالسين على المقالة وانا كاهي صار من فات مرفيري وحيابها سميل لها ما محت وحولي هدام كله سديد سحابين من لامي وكورد أضوان أسترنين وأنا سميساولي وحولي هدي أنت التليفون كوصل در سكن كيبا بيتو لها آدم يقبل واسمين الشروط آد وآد يعني يقف سديد سحابين مع صوت عولدي سي أسترنين أرض أنا هذا بالكورة waxa kusameeyna waasaas gabadhii markuu xeedahay aniga dibka iyo waxay tahay qoyskayga shalay umaan u sheegay arintan waan ka qarsaday qofkii aan u go'ay sidaas iyeelay waxyaabaha maaragtay tacadiga yaab kale ka mid tahay runtii aari murug ingiriis murug weyn oo waabto qofkii oo dhiban ee haddana aan xaqiisi iyo xuquuqdii uu lahaa aan dhacsan karin qofkii oo dhiban oo haddana aan maaragtay waxba sameyn karin qofkii oo dhiban oo la siiri kaateenaayo oo kii dhibku u geystayna uu qoslaayo oo uu stress la'aan yahay oo koob shaah bigays intuu cabirahay waxa waaye unacceptable waaye waxa aan la aqbali karin waa marka si loo fiiriyo xaqiiqatan devastating situation waaye xaalad aad u murug badan waaye soo marka waxyaabaha marka anaga marka aan rabno hadda inta u fadhino waxay tahay inaan idinkala hadalno saaxiibayaal arrintaas inaan wacyigelin qoto dheer ka sameyno wacyigelin aan ka sameyno aan ka hadalno faahfaahin war wiilow war qofka aad sidaan ku sameynayso yaabo war qofka aad sidaan ku sameynayso waa tuma war waa walaasha Soomaaliyeed aniga ma dhahaayo ragga waa wada xun yihiin xaqiiqatan sababtoo aniga nin rag ahay raggu dhammaantood way wada liitaan ma qof baa ku jiri kara xun qofkii bay kusoo aadi kartaa hadda waxaan soo wadaa barnaamij aan uga hadlayo nin youtuber oo aad saqajaan waa mafad nin youtuber aad saqajaan nin waxa jira youtuber hada youtube kiisas gashaan wallahi waa argixisa wuxuu duubanaa codadka gabdhaha duubanaa habeen iyo maalin uu duubanaa ayagoo wax wadaagaya gabdhaha sheekaysanaayo duubanaa youtube ku soo dilna degdeg fadaaxibal degdeg bala fiiri waa gabadhi ninkaas si gaar ah uga soo hadli doona ninkaas waa dhagraa aad u qarsan waa halaaga gabdhaha Soomaaliyeed gabdho badan oo kala duwan oo masaakiina gacan isku dhac habeen dhan ayaa ninkaas qiimeynaya barnaamijyadiisa fiirna ninka waa nin aamusan oo maaragtay aan codkiisa qof walba aqoonsan kara qofkii yaqaan maybe aan waa hubaa dad badan oo codka aqoonsigooda aad ugu fiican ay jiraan kuwaas waa aaminsan ninkaas aqoonsan doona waxna ka qaban doona laakiin ninkan muuqaalkiisa lama arko sawirkiisa lama arko codkiisa la maqlay gabdhaha codkooda gabar miskiina oo ilmo korsanayso gabar miskiina oo ma aragtay nolosha ilmaha ay la dala dhacayso garoobiska ama mid kale oo maaragtay daayiro iska u baahan nolol iyo taageero iyo garab istaag intuu u baahan ayuu ninkaas dhagara oo qiyaama waxa loo baahan yahay dadka sharafta leh ee waxa la socda baraha bulshada ayaga wax ka dhigi kara isbedelka maanta ee aan u baahanna inaan sameeyno xaqiiqatan wuxuu ku jira gacantaada ku jira wanaaga isbedel ku sameyn kartaa xumaan ayaa ka hortagi kartaa hadalka aamusto la wax hagaaga soo ninkaas barnaamijkiisa aad uga soo hadli doona isna ninkaas waa idin soo bandhigi doona janaalkiisa nin halis nin aad u edeb daran imtixaan imtixaan waxyaabaha ka hadla aniga maba awoodo in hadda afkiisa soo marsi waana fahmi kartaa markaas as dhahay arintu waa deep waay arin aad u adag waay okay sheekada kale aan ku soconaa nooda soo marka walaalow maxaa kugu kalifay bal fiir ka soo tag maanta adiga gabar asaas sameysay waa dhibaataysay berito adiga mustaqbal sameystay xaasi mar waa yeelatay hadii adiga ilaahay uu kugu jisaak falo ka waran in xumaan laga sameeyo fiiri why u sameynaysaa xumaan qof maaragtay xitaa hadduu qofka ku believe gareeyo ku aaminay why dhowr weynaaday qofka in adiga ilaalisaa la rabo mugti qofku ilaaliyey ku aaminay in aamintaa la rabo mugti waxyaabaha la yaabaa waxay tahay qof baa wuxuu ku dhiiranaaba inuu qof saas u dulmi gabdhihii markaa maxay rabaan talay rabaan taladiina waxay tahay taladiina waxaa waaye horta
si hoosana xalka waa idin siiyo waa la socotiin midda kale hadda aan ka hadlayna markuu waxay tahay inaad ka feejignaataan idinkuba ninka ku dili rabo wajigiisa ka fahmay mafaanta ninka qorigooda kaliya maaha kan ku dila kan kuu qoslaaya ee laakiin khiyaanola ah la rabaa in aad inta akhrisid aad fahantid nuxurkiisa suu kugu dili rabaa qosobkan muu kugu dili rabaa ninkan waa inaad fahantaa ay intuu joogaa meel hebel joogaa xabiibi no xabiibi hadhow ka dhex arkee sababto hadda ujeedaa dhibaatadan kugu dhacaysa waxaa waay ninaad aamintay wa ya you trusted someone qofka aaminto qofkii aamintay yaa dilaa kugu noqday soo marka qofka aad noloshaada la samaysanayso ama aad rabto inaad barnaamij la yeelato qofka akhri qof walba ma xumo waa fahmi karnaa 2 iyo 3 naga xumo dadka Soomaaliyeed ma wada xumo 2 iyo 3 ismu jirtaa waa marka inaad adiga fahmi kartid fahamta haddaad adiga fahmin xaqiiqa anigana ma fahmay adna dhibaatada kugu soconaysa maalintii markii lagu dhibaatay kadib baa soo qeylnay waxa leedahay walaalow saasa ay haysato seen yeela ninkii wixii gacantiisa ugu jiraan maalin walba Soomaaliyeed gabar Soomaaliya oo baraha bulshada la soo dhigaa Soomaaliyeed oo iyadoo dhar la'aan ama iyadoo si kala ah fiiri كنت سالق هذا فهم يعني نحرك فهم وروحان هلسة يقولين هلستان سيبقى بالباء ولا جيستا هل من الوجس جيستا إسكا خبطة من فهمت أنا كنا وحنا كنت قال لنا صاحب ريال إله إذا بركة هنا أنت تبرت هنا أمارة عن وعي جرينت سميانه وحي باي ما أردت أكشن وحلا وخا مكرم عنو خبر من فهمت هنا نبدأ على نضد كاس حمان تخافنا وأنا كجوب حمانته مناقلنت haddaba tani walaalkay waa mas'uuliyad adiga aniga noo saaran waxa u baahanaa inaan iska kaashano waxaan kuula talinayaa inaad ka qayb qaadato wacyigelinta oo aad la dagaalanto dadkaas xumaan faafiyaasha wassalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh